Assalaamu calaykum asxaabta janalka ku xidhan soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daadaa. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa dayax-gacmeedka Parker Solar Probe ee hay'adda NASA hawada sare ugu dirtay si uu qoraxda u soo taabto. Haddaba si aan u bilowno muuqaalkan, fadlan janalka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, muuqaalka haddaad ka heshayna like saar. Mahadsanid. Qoraxdu waa isha ugu weyn ee aan ka helno tamarta. Waxay inoo jirtaa 150 milyan oo kiiloomitir. Heerkulka ogadeeda sarena waa 6,000 oo digrii oo Celsius, taasoo ku filan inay gebi ahaanba ay dhalaaliso birta. Si ay bini'aadanku wax badan uga ogaadaan qoraxda, ayaa waxaa 12 bishii Agosto ee sanadkii 2018 ay hay'adda Mareykanka u qaabilsan hawada sare ee NASA ay hawada sare u direen dayax-gacmeedka magaciisu yahay Parker Solar Probe. Hay'adda NASA ayaana sheegtay inuu qoraxda u jirsan doono masaafo aan weligeed horey loo gaarin. Dayax-gacmeedka Parker Solar Probe waxay hawada sare ugu direen si uu u soo taabto qoraxda iyo in baaritaan lagu sameeyo qoraxda si loo ogaado sababaha keena qaraxyo inay samayso qoraxda sida ay sheegeen saynisyahanada. Dayax-gacmeedka Parker Solar ayaa noqday shaygii ugu xawaaraha dheeraa ee ay abid bini'aadanku sameeyaan. Macluumaadkii uu soo ururiyey ayaa lagu ogaaday dabeecadaha qoraxda ee muddada dheer la garan la'aa. Dayax-gacmeedka ayaa inta uusan qoraxda gaarin wuxuu ku sii dul wareegay meeraha Venus, wuxuuna ka soo qaaday sawirro badan oo cajiib ah. Kadib 2 bilood oo uu safar ku jiray, asaga oo jaray masaafo dhan 122 milyan oo kiiloomitir, ayaa ugu dambeyn wuxuu dayax-gacmeedkii Parker u dhawaaday qoraxda, wuxuuna galay atmosfeerka ama jawiga qoraxda, asaga oo qoraxda u jirsaday 6.16 milyan oo kiiloomitir. Dhakhtarada magaceedu yahay Nikki Fox, oo ka mid ah saynisyahanada howlgalkan fulinaya, ayaa BBC-da u sheegtay in masaafada qoraxda loogu dhowaanayo aysan ahayn mid aad ugu sii dhow, balse waxa ay hoosta ka xariiqday in ay tahay mid aad cajiib u ah oo wax yar ay u jirsan doonaan qoraxda. Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay intaas ku dartay in arrinta kale ee cajiibka ahna ay tahay sida uu u dhaqsi badan yahay xawaaraha dayax-gacmeedkan. Dhakhtarad Nikki Fox ayaa sheegtay in dayax-gacmeedka howlgalkan fulinaya uu saacadiiba ku soconayo masaafo dhan 690,000 oo kiiloomitir. Saynisyahanada ayaa taasna ku cabirtay haddii safarkani uu ahaan lahaa jawiga dunida, in uu la mid noqon lahaa sidii iyadoo muddo 1 daqiiqo ka yar loo kala socday magaalooyinka New York iyo Tokyo oo ku kala yaala dalalka Mareykanka iyo Jabaan. Kuwani waa sawirrada dhabta ah ee atmosfeerka qoraxda ee uu qaaday dayax-gacmeedka Parker. Parker wuxuu atmosfeerka qoraxda joogi doonaa ilaa 2025 si uu u sameeyo baaritaano badan oo wax badan looga barto qoraxda. Shaqadiisa markuu dhammaysto kadibna wuxuu ku dul dhici doonaa qoraxda, howlgalkiisana halkaas ayuu ku ekaan doonaa. Daawade, janalka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo. Mahadsanid.